wasaaradaha kalluumaysiga dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa waxa ay shaaciyeen inay xiriirka u jareen wasaaradda kalluumaysiga dowladda dhexe ee Soomaaliya kadib kulan 3 maalmood soconayay oo magaalada Kismaayo ay ku yeesheen. Wariyaheena Zahra Siman ayaa warbixintan Kismaayo ka soo dirtay. shirkan oo ay martigelisay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ahaa mid ay yeesheen wasaaradaha kalluumaysiga ee dowlad goboleedyada dalka. kulanka oo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Kismaayo ayaa laga soo saaray warmurtiyeed kadib markii uu shirka soo ilaalay ayaa waxa warmurtiyeedka qodobadii shirka ka soo baxay warbaahinta u aqriyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Salaad wuxuuna sheegay in gebi ahaanba xiriirkii wada shaqeyneed ay u jareen wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Soomaaliya. warmurtiyeed hordhac markaan aragnay baahida loo qabo maareynta tashiilka ilaalinta iyo ka faa'iideysiga kheyraadka badda markaan aragnay baahida loo qabo in la helo siyaasad midaysan ee heer federaal iyo mid maamul goboleed si loo horumariyo loogana faa'iideysto kheyraadka baddeena markaan garwaaqsanay maqnaanshaha hogaamineed ee wasaaradda kalluumaysiga ee heer federaal taas oo keentay habacsanaan khilaaf joogto ah daafurnaan la'aan isla xisaabtan la'aan iyo wada shaqayn la'aan baahsan markaan aragnay ciryaaminta howlaha wasaaradda kalluumaysiga ee heer maamul goboleed burunti heshiisyadii la wada galay iyo ishor istaagga mashaariicdii kalluumaysi oo laga fulin lahaa dalka markaan ogaanay gelitaanka heshiisyo caalami ah iyo bixinta ruqsado kalluumaysi oo baalmarsan shuruucda dalka kana hor imaanaya heshiiskii ee wadaagga dakhliga kheyraadka badda ay wada galeen madaxda qaranka bishii 2018 markaan tixraacnay qodobka 12 ee dastuurka ku-meel gaarka ah oo qeexaya in awoodaha iyo dakhliga kheyraadka ay ka wada xaajoodaan dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah sidaa daraadeed waxaan go'aansanay qodobka koowaad waxaan hakinay dhammaan wada shaqayntii ka dhaxaysay wasaaradda kalluumaysiga dowladda federaalka iyo wasaaradaha kalluumaysiga maamul goboleedyada inta la sameeyo shuruucda kalluumaysi oo ka turjumaya habkii federalismka ee dalku ku dhaqmi lahaa isla markaana laga wada tashanayo inta laga helayo hogaamin toosan iyo wada shaqayn hufan kuna shaqaysa daahfurnaan iyo isla xisaabtan inta looga rabayo heshiiskii siyaasadeed ee madaxda dalka ay ku gaareen magaalada Muqdisho bishii 2018 kuna saabsanaa wadaagga dakhliga kheyraadka badda heshiisyo farsamo si uu u dhaqan galo heshiiska asaga ah inta laga abuurayo hay'adda kalluumaysiga Soomaaliyeed ama hab kale oo ku meel gaar ah heshiisna lagu wada yahay qodobka labaad inta laga fulinayo shuruudaha ku xusan qodobka koowaad dowladaha xubnaha ka ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ma ixtiraami doonaan ruqsad kasta oo ay bixiso wasaaradda kalluumaysiga dowladda federaalka waxayna u aqoonsan doonaan gaadiid kasta oo ka howlgalaya ruqsaddaas mid ka howlan kalluumaysiga sharci darrada ah IUU qodobka saddexaad wasaaradda kalluumaysiga ee heer maamul goboleed waxay iska kaashanayaan arrimahan soo socda dhisidda guddiga kalluumaysiga maamul goboleedyada isdaafsiga macluumaadka iyo xogaha kalluumaysiga tababarada iyo kor u qaadista xirfadda kalluumaysiga si looga faa'iideysto kheyraadka badda samaynta xarumo cilmi baariseed khuburada culumta badda kor u qaadista iyo tayeynta culumta badda ee heer jaamacadeed loona abuuro fursado shaqo ardayda ka soo baxda jaamacadahaas tayeynta iyo suuqgeynta wax soo saarka kheyraadka badda maareynta tashiilka noolaha badda iyo ilaalinta deegaanka badda ka hortagga iyo la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada shirka wada tashiga wasaaradaha kalluumaysiga xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo 3 cisho ka socday magaalada Kismaayo ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee yeeshaan wasaaradaha kalluumaysiga dowlad goboleedyada dalka. Zahra Siman.